against the world, baby. Can you picture my prophecy? Stress in the city, the cops are stopping me. The project is full of bullets, no bodies is dropping. They ain't no stopping me. Constantly moving while making millions. Witnessing killings, leaving dead bodies in the abandoned buildings. Carries the children cause they're illin'. Addicted to killing and the appeal from the cap villain. Without feeling, but will they last or be blasted? Hard at its bastard. Maybe you'll listen in this casket, the aftermath. More bodies being buried. I'm losing my homies in a hurry. They relocating to the cemetery. Got me worried, stressing my business blurry. The question is, will I live? No one in the world loves me. I'm headed for danger. Don't trust strangers. Put one in the chamber whenever I'm feeling this anger. Don't wanna make excuses, cause this is how it is. What's the use unless we're shooting? No one notices the youth. It's just me. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وعن ونكسن صاحب يال ميل ولبا وادعا ونقا مقليسان كسر هذا برنامج هبين كانوا كلاد مقشان اللي يابكا عيارها يهندقا waxyaab wadca maqli doontaan barnaamijkeena ku soo qaadan doono la yaabka ciyaaraha waxa ka mid noqon doona ninkii Cristiano Ronaldo waxa leeyahay oo ku faraxsan yahay in Chelsea iyo Barcelona bareejo ay galaan wuxuu dareemayaa ugu dambeyn Chelsea inay reebi doonto Barcelona isagana Champions League banaanka ka qaadan doono kadibna abaalmarintiisii lixaad ee Ballon d'Or la siin doono waxaad kaloo caawa barnaamijkeena kuna la yaabka ku maqli doontaan kadib Messi markii uu soo taabtay shabakada Chelsea oo sideed ciyaarood kari waayay hadda waxa Messi uu soo afjaray Chelsea waxa soo dhiman lix kooxood oo hadda wili gool ka dhalin waxaad kaloo caawa barnaamijkeena kan ee la yaabka ku maqli doontaan Gareth Bale seedigiis waa isdiray ogow ninku hadda ayaantan tacsiiba u taalee sababtu maxay tahay waxaad kaloo caawa barnaamijkeena ku maqli doontaan Neymar oo sida haram cad ka camal u labistay waliba lacag badan ugu baxday diyaaradii Pep Guardiola oo la baaray maanta wali waxaad barnaamijku caawa ku maqli doontaan qodobo ay ka mid tahay ogow kooxaha ugu kubad haysiga badan Champions League xilli ciyaareedkan City waxay halis gelinaysaa kooxda Barcelona waxaana dareemaysaa City in kamal daarigi ay markaan heshay maamulka Barcelona oo ka cabsi qaba in kooxdoodu sanadkan ay qaado 3 koob haddii 3 koob ay qaadana ciyaartooyga faa'iidi doona waxaad kaloo caawa barnaamijkeenu kan la yaabka ku maqli doontaan iyana qodobo ay ka mid yihiin AC Milan iyo Arsenal oo markaan Europe League aynaya hadda waxay soo Champions League yeemba hadda markaan halkan bay isku qaban doonaan Messi iyo Ronaldo ma la joogaya hadda waxa soo baxay sanadkan rag Messi iyo Ronaldo beentiin bayriyo ka goolal badan wali waxaad caawa barnaamijkeena ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin Mourinho oo isbuucan dhulka la galay xitaa Manchester safiilamay ka baqaysa oo mayay safiile xitaa Manchester maara u laadahay hore majdad laan baa jirta wali waxaad caawa barnaamijkeena ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin Henry oo isbuucan hadal ka yaabiyay ciyaartooyga oo dhan yiri kadib markuu yiri kubaddu cagtu Messi bay leedahay asiga haddaan laga dambeeynin niman yahow kamal daariga iska dhaafa sports waa badan yahay basket dheela ama uu kala wax ku dheela Messi haddaan laga dambeeynin cid kale kamal daarigan looga dambeeyna ma jirto wala Neymar wala Ronaldo wala qof walba hooska Messi ayaad ku jirtaan dhamaantiin hadduu sportska idin anfacayn oo ciyaaraha kamal daariga kubadda cagtu idin anfacayn oo liyo aadan ka dambeeynin war beeraha iska fashtixitaa iyo qodobo kale la yaabeed caawa barnaamijkood ku maqli doontaan la yaabka dunidana waxaan caawa ku soo qaadan doonaa qodobo yan way ka mid yihiin guurso gabar 30 jir ah oo hel $5,000 $5,000 gabar 30 jir ku cimaamado hadda caawa lacag baan ku hayaa gabarna waan kugu darayaa wali waxaan caawa barnaamijka ku maqli doontaan haweeney isheeda laga soo bixiyay 14 gooryaan alxamdulillah dhayla wax badan uu ka haya 14 gooryaan dhaadheera laga soo siisiibi wali waxaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan loo xabsi ku jirta sanad iyo bar hadda maxaa loo xiray iyo qodobo kale la yaabeed ayaad caawa barnaamijkan ku maqli doontaan oo ay qayb ka yihiin wariye fooshi qabatay tabintoos looga sameeyay idaacadda si toos hadda meel fiican oo canuga soo maraya waa dhow yahay canuga afka hore goolku hadda soo maraya cunugii dhow yahay waa dhashay Allah
ku soo dhowow duridan tabintii tooska idaacad laga sameeyey gabadhii foolanaysa isbuucan isbayn aabe wiil ku tahriibiyey boorso oo xabsi hadda la geliyey addoon ahaan ayaa 4 jeer liibiya lagu haystay habar xaliima ilmaheedii liibiya maanta addooman looga dhiganayaayo soomaali lagu haysta liibiya addoonnimo ku soo shaqeeyay oo caawan eegi doono iyo arrimo kaloo la yaabeed baad caawa barnaamijka ku maqli doontaan indiguna waxaan caawa ku soo qaadan doonaa qodobo ay ka mid yihiin Sylvester Stallone oo la sheegay inuu geeriyooday waa ninka loo yaqaan Rambo hadda maxaa ka jira walkaas Amir Khan oo shiinuhu qabsaday aktaradu dhanba filmadoodu markii shiinaha laga daawanayo isaga ayaa kan loogu jecel yahay waliba labada aktar ee qatarta ku ah filimada Tamilka iyo Teluguga Mahesh Babu iyo Allu Arjun oo filmadoodu isku dhacayaan wali waxaad caawa barnaamijkeena ku maqli doontaan kadib Akshay Kumar filimkiisii Batman hadda wuxuu soo wadaa filim ilmo yaryar Afghanistan oo filimka la jilayo wali waxaad maqli doontaan gabadhii caanka noqotay ee aktarnimada hadda isku bedeli doonta NTR oo markale aaba noqday Rani Mukhrajiya kulutrin aktarada ay noqoto iyo qodobo kale oo hindiyeedo uu ku jiro caawa heeska caawa jacaylka oo aanu ku soo qaadan doono hees cimaamad kutura hees qalbiya hees jacayla qalbigan wax ka dareemaya kuchi hotahay kan oo soo baxay 1998 waa Shahrukhan Kajal Rani Mukhrajiya Salman Khan oo qayb danba ka lahaanaya walle caawa jacayl wuxuu yahay baa lagu sheegayaayo 24 waa kamal daariyeenaysayo Ronaldo Sanwa Messi Sanwa kan anaga qaadayno kan see waaye heeska qaybta dhaxbad barnaamijka ku maqli doontaan तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है ना जाने कैसा एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा कोई न जाने क्यों चैन खोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है
जाने क्यों आने लगा। तन्हाई में दिल यादें संजोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय qaybaha dhexe barnaamijkeenu wad caawa ku maqli doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena la yaabka qodobada iyo kuwa kale oo isugu jira dhinac walba caawa waxaad ku helaysaa aad ku maqli doontaan caawa barnaamijkeenu la yaabka. waxyaabaha horna caawa baad maqli doontaan oo ciyaarihii baa nagu horeyn doona la yaabkii dunidu kadibna waxaanu eegi doonaa qaybaha dambe barnaamijkeenu entertainmentiga aflaamtu hindigu qayb ka yihiinba. bal markan iyeeyow وهكذا صاحب بيال واحد نقل صوتان إذا عاد إسبورت كدلك جول FM هذا وناكسن أيانو إذن لنا هاي مال والبعض نقل مقليسان عاو هذا عن لاين قبل يدلك الصومالية ساتلايت كي فيسبوك كي مال والبعض عاو نقل مقليسان وكان هو برنامج انترتينمنت أو بين كانوا قلاد صاحب بدو أي مقلان وحنا عاو برنامج كتابجلنا يا إتو سد إسبورتس هاوس أي برنامج كتابجلنا يو أو هو يدي إسبورتيكا qalabayn jirtayo hadda haday ahaan lahaayeen isboortigu kuwa ciyaara kuwa jecel kuwa daawada wax walba ku qancaan waa kuwa iyagu haye hadaba eetu sad sports hawda ayaana caawa barnaamijku kanu ee la yaabka taabagelinaya wana nimanka ku horumarinta ciyaaraha waliba waxay ku hayaan yaani waxa weeyaan waa hooygii isboortigu waxaad ka helaysaa waa dukaamo aad u badan waa warshad baan u dhihi karnaayo qalabka isboortiga oo idilba laga helo haday ahaan lahayn wixii kamaldaariga lagu kami lahaa kabihii haday ahaan lahayn iskaalshihii yaani dhuuxaadu ilaalinaysay maxaa la yiraahdaayo wax walba bay ku hayaan oo isboortigu ku saabsan hadaba ay tusad baan caawa barnaamijku taabagelinayo waan gudugaleynaa marka kan la yaabka aragada aanu amanaye sogabe artay akyahe aragada aanu amanaye sogabe artay akyahe iyo waayahayo markan qaybaha ugu horeeya barnaamijkeenu caawa ayaynu gudagaleynaayo arrimaha isboortiga isbuucan waxyaabihii ugu weynaa waxaa ka mid ahaa hadda Champions League iyo Europe League iyo wixii dhan baa la ciyaarayo hadda
wuxuu qaarkood marada ka dhacday oo cimaamad maba lahanba oo xitaa kooxii yaryaraa ee Champions League lagu aadiyayba hadda ku neeftuurayaanba heshimeeba laga sugayaa in hadda geed dagaweynahaba qabtaan oo goorme ayaa haddaba nimankaa laga sugay in geed ku qabtaan haddaba Madrid maadaama ay PSG lugtii ugu horeysa ciyaaruhu ka badiyeen Cristiano waa faraxsan yahay oo waxa uu qabaa in Chelsea ay reebi karto Barcelona yani maadaama PSG garaaceen waxay soo arkaan iyagu soo bixi karaan sidaas daraadeed wuxuu rabaa in Messi asxaabtiisa laga reebo hadda Ronaldo waxa la sheegay inuu ku faraxsan yahay bareejihii ay galeen Barcelona iyo Chelsea wuxuuna aaminsan yahay Chelsea inay reebi karto kooxda kubadda cagta ee Barca wuxuu fahansan yahay in sida ugu fiican ugu guuleysan karo ay tahay in Messi xarfaantiisu laga ciribtiro koobka dhagaweynaha wuxuu aaminsan yahay odaga Ronaldo wuxuu aaminsan yahay Messi asxaabtiisa in ciyaaru laga ciribtiro sida awgeed ninka reer Portugal wuxuu rabaa inuu gambiyoonka kan iska qaado oo markii lixaad uu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or oo abaalmarin 6 jeer aanu weliga nin qaadin marka Cristiano Ronaldo wuxuu taageero weyn u noqday hadda si ku meel gaara in Chelsea uu noqday wuxuu rabaa in Barcelona meel laga saaro marka Ronaldo waxa leeyahay aad iyo aad buu ku farxay Barbarow Chelsea wuxuu isleeyahay kuwa ka hadii mar laga reebo waa balaayo ma ogtahay Barcelona markay Real Madrid la ciyaarayso waa ciyaar aad iyo aad konton waa guusha yani waa laba kooxood oo dunida looga yaqaan marka wuxuu leeyahay kuwaas dhibkooda ma rababa ha iga haraan aniguna geedka kanaan isku qaado marka ninka la yiraahdo Cristiano Ronaldo wuxuu taageero u noqday Chelsea waxaanu ku farxay bareejii isbuucan ay Blue iyo Barca galeen waxaanu rabaa in Barca laga reebo dhagweynaan buu iska qaado wuxuu leeyahay kuwaas laga reebo geedka anaga iska leh waxaan iska Bayern Munich hore ugu arkay Atletico waaba harti sanadka kan waaba raacdeen jiray waxaan wax uma arka ka waran ya war ilaahay amarkii markuu wuxuu leeyahay Blues ay shaqo iga qabo nimanka iga reeb anu aan iska Ballon d'Or ee sanadka soo dambe ya marka waa ka Cristiano nimankii Chelsea buu hadda taageero u noqday Leo Messi haddaba hadduu soo afjaray nimankii Chelsea ahaa oo dhihi jiray Messi gool lagama dhaliyo Messi wax ma ahan hadda galab wayaan bay ku hayn jireen odayga intuu qabtay habeen dhaweed buu Chelsea wuxuu ka dhaliyay gool edab daran dhulka ugu dhuftay ugu taraarixiyay waliba gool haya kartuwa markaasuu isha ka dayn baqaba kari waayay in istaqaaro ninkaas waa lagu leeyahay ma ninkaas qaaro ma ninkaas isbalkuweeti dhalinyaradii yaryara dhaxdooda jagja ka siistaya oreynaysta cid idhihi karta malaha ninkaas ka maldaari maanta ninku gaara ka maldaariga ciyaara odayaal horwaad qoobay iska dhaaf odaygan ninka edab daran ma joogo ka maldaari xagga kalsooni lagu laabtay ka war ya oreynaysta macquul ma ayaa war dhalinyarada yaryariiska laga dhaxdafaa ka war maanta haddaad kaysato ninka khad dhexe ugu dhalinta yar odaygaas kuma aado wax kama qaban karo waa iska baxayin le micna caagooda isku shubanayaan biyoodii boorso isku xirnaa waa iska baxayaan maan ninkaas cid wax ka qaban karta mala wallahi ka waran kubadii saa isku khaldeen iyaga ayaa dhexdinta laga qaadiya dhag lagu siiyaa laag maray waraagaa ku raaxaysa liir baasha waa ku kurkuray wax badan ogowna hadda ka hor goolkii 2009kii Messi ayaa caawiyay Iniesta dhali haddana Iniesta ayaa caawiyay Messi baa dhaliyay malaha taariikhdu inay dib isku keento baa laga yaabaayo xilligaas Chelsea baa la reebo moogtahay haddana bal waan arki doonaa wali ciyaar ma dhawa laakiin Messi waa soo afjaray Chelsea 8 kulan uu gool ka dhalin balse odaygu 6 kooxood kale marada ugu dhacaysa hadduu ayaan dhaweyd marada cishtay oo intuu geeska iska fiiriyo Maxamed Maliya ilaahay kuwa naga ilaahay ceebta asturo marada cishtay wali odaygu maradiisa ma cishlaan ku leeyahay wali ileen waxa jira 6 kooxood kale ayaa jira oo uusan odagu weligiis gool ka dhalin 6 kooxood kale jira odagu gool ka dhalin kuwaasna marada ugu dhacaysa odagu maalin kasta maradiisa maalin kasta Chelsea nasiib u yeeshay waanu ku cistay marada bal kuwan wuxuu rajeynay inuu nasiib ku yeesho hadda ka hor imaado ka cistay marada hadda Liverpool baa kamid ah kooxuusan gool ka dhalin 180 daqiiqo Liverpool ku imaado gool kama dhalin soo indhaha taagtaagayo gaaban oo iska baxay 180 daqiiqo waanu dhalin gool Liverpool waxay Liverpool kamid tahay marka kooxahan odagu gool ka dhalin sidoo kale kooxaha aynu ninka kanu gool ka dhalin waxa kamid ah Benfica ayaa kamid ah oo iyanu aanu gool ka dhalin ninka kan ee Argentinku laakiin 6 kooxood oo qura ayaa u harsan hadii Champions League la fiiriyo Champions League inta marka kooxo waxa jira uu korimaado inuu gool ka dhalin horyaal kama hadlayno laakiin 6 kooxood wali Champions League gool uma aanu dhalin Liverpool oo ka horimaaday kama aanu dhalin sidoo kale wuxuu ka horimaaday Atletico Madrid 360 daqiiqo ka horimaaday Champions League wali gool kama dhalin Atletico Madrid ha gafurka soo taagaya
hay Atletico horyaal iska daldalay maayne James League ma ugu shubaynin ninkan isdaji dad waxa jira hadii Ronaldo wax laga sheegay hadii Messi wax laga sheego hore kursiga uu booday slow abow horyaalka waa ugu shubi marka diiday macna wali horyaalka ku reexaystay laakiin James League oo go'aamada aragtay Messi wax dhalay Barcelona baa la reebayay asoo indha iska taagtaagay oo miraq qasinay indhaha gaaban oo meelaha iska baxay yaa iskaalsho dheere wax ma ka qaban jirin Atletico Madrid gool kama dhalin Liverpool gool kama dhalin Benfica gool kama dhalin Robin Kesena gool kama dhalin Udinese gool kama dhalin James League Inter Milan gool kama dhalin James League lixdaas kooxood adugu James League gool kama dhalin inta kale waa soo taabtay shabaqooda laakiin lixdaas kooxood ee caawa ku sheegayo adugu marna shabaqooda ma soo taaban ciyaaraha Yurub ee James League waa Liverpool waa Atletico Madrid waa Benfica waa Kaizen waa Udinese oo lagu daray Inter Milan wala yaanta ninkii Mourinho ahaa iyo ninkii Pogba ahaa waa isku kacsayin ninkii Mourinho ahaa iyo ninkii Pogba ahaa yaantan waa isku kacsayin aad iyo aad buu xaalkoodu maraya Mourinho liirada ninkan meeshuu galo waa walaaqa saanu intuu qaato saan dhan uu wareejinaya war ninkan ka kacade aw waxa laga dhigay frustrata lagu riday dhanba frustration ba ku dhacay ninkii ka ahaa ee mondialka dunida ee haystay Ballon ku haystay wareeriso ku riday ninkan marka ninkan fiicnaantiisa tababaray guuleed waxa ku hoos qadsan dabeecad usuma yeeshan isaga ciyaartooygu hadda waa kan wuxuu maal ciyaariyaan legentii wuxuu soo raacdeeyaba hadda bag wali harka legentii ma gaarin laakiin raga Manchester ugu fiican waxay ahayd inuu la xaaltamo waa ka isaga iyo Mourinho waa isku dhacsiin Pogba iyo Mourinho waa isku dhacsiin xitaa Mourinho waxay ka gaartay inuu Pogba yiraahdo war albaabkiiga bax wariya meeshan aniga ka taliye oo cad ma lagu noqonayo warkaas iyadoo isbuucan Chelsea iyo Manchester United ciyaarayaan aan waxaan u maleynaa Mourinho xanaaq darteed inuu meesha uu soo saf magtumina iyo balaa inuu soo safaan u maleynaa ta idin ku dhacdana waa leedin yaaba jooga marka Manchester iyadoo darbi uu ku soo socdo Mourinho waa uu tiin madax waraawu qaba iyadoo hadda United ay la ciyaaraysan nimanka xooga weyn leh ayaa marka hadda isku dhacdo waxa laga yaabaa inuu warkeedka naga fariiso meelaad madax raameysaaye oo madax bulbuleysaayo markaas sidii raartii oo kala qaybna u hooseysaa oo qaybna wax badan ka leedahay tima marka allayo marka labadu isku dhacsayin laacibku uu qaalisay United ayaa la sheegayaa inuu gaaray xafiiska macalinka Mourinho waxaan halkaas ku dhaafseen hadalla kulul Mourinho qolka xafiiskiisa ugu tagay macna Mourinho waa la ogyahay ninkan Pogba buluketi waa ilma leh waa muli wararka waa weyn oo ninkan uu soo kululay ninkan xafiiska uu isugu orday marka takrunacday Pogba waa la ogaa Pogba ayaana kala hadlayay Jose Mourinho booska qaldan uu ku ciyaarsiinayo iyo sidoo kale waxa la soo wariyay inuu kala hadlay in ciyaartoyda aysan ku faraxsanin tactics aw Pogba meesha saa ugu madax fiiqan meeshan dadka ugu gaygaysan wayaan intuu Mourinho tagay inuu yiraahdo horta neeyo booska ma ka yeelay anigu booska aan rabo iga ciyaarsi boos qaldan bad iga ciyaarsiinaysaa tan kale neeyo tacticadaada iyo qaabka wax uu haynayso neeyo lagu ma raacsano Mourinho dhac indhaha waa kululaaday yeelkeeda markuu Mourinho halka kursi kululaaday ayuu Mourinho u tilmaamay 40 jirkan Pogba yiraahdo wariya albaabka fiiri baa yiri waxa ku qoran albaabka Mourinho ayaa wuxuu yiri wariya xafiiska albaabka waxa ku qoran fiiri baa yiri isagoo uu la jeedo inuu isagu goobta ka taliyo isla markaana warkiisu soconayo waxa la yiri wiiliyo way dhageyso hadda koorna waa maalin isku dhaceen waa tii la yiri wariya meeshan adoo ka dambeey aniga dambeey masaadan ka dambeey waa tii la isku qabsaday marka wuxuu yiri niyo hadaad aniga dambeey waa iska fariisan kartaa markaas uu toomina ciyaartu fariisay haddana waxa la yiri markuu is yiri tacticadaada galab waaye iyo anigu boos qaldan aad ka ciyaarsiinaysaa markuu kuwaas ugu dardaray bal wariya kor fiiri baa la yiri Pogba saan u fiiri xafiiskan ka taliyo xafiiskan aniga ka taliyo hadaad warkeyga raacina avanti Pogba asoo iska furtaagay hor meesha ku soo baxay dagaalku hadda waa dheeraadayo Pogba ayaana 2 jeer la bedelay iyadoo lagu soo bilaabin 3 kulan 5 ciyaar ugu dambeeyay wararka ayaana inta ku daray in xidig hore Juventus uu ka fikiriyay xataa inuu isaga tago Trafford hadii uu hagaagi waayo xiriirka colaadeed ee kala dhaxeeya Mourinho Real Madrid ayaana hore u rabtay ninka kanu hadan xooga saari doonta marka Mourinho waa kaas Mourinho qasay ya
horta bogba inkastoo ragga ugu fiican Manchester ka mid yahay haddana inkastoo dadaalka ugu weyn ee laga rabo aan laga helin haddana ma dhihi karno bogba halkeed hal geli ma dhihi karno ugu yaraan 95% ayuu fiican yahay shanta kale waa iska dheedheela micna rumu ciyaaraya geeda awado dhan qoorta usaan kale sida ma aragtay boola biyo ku dhex jirto biyo cabayso saan yani waxa leedahay ninka maxaa qoorta dad qoor saan u socdo la arkaysa ya rumu ciyaar daacad hadii uu ninkan ka tahay geeda يعني كوبديسن واحد أمالين سما تقانا إنه إسكت ديل يسكر رع هذا كقار كوبد الأرض يجيب يهرك باص يهرك الله يما هذا عبارنا والله سعنا جد سمعة وجودين هذا ذا نكهم حي تهيد ما حسن سو سينا يصير ما راح واحد قال البورس لوجا سو قراعيه هذا نساس ويتاني كنا في عويان يعني. لكن مري يبقى بحد حال قدوة كدري ولا جلس الأسبوع عم بالله عيار سنة حدا وضرت نوعي برشا قول عي إسكاجره إنه قاز لون حول قويان مركا هدي بحال كي نسان يهي بلا مريا ليلا ادور بتوميني وسكسفا توميني وحل الما يريال مانشستر وعيار وسكسفا يا مريا بقبواكها wali waxaad nagala socotaan idaacadda isboortiga dalka ee Goal FM ayaad naga maqlaysaan haddaba saaxiibayaal waxaad naga maqlaysaan Facebook sidoo kale waxaad naga maqlaysaan gobolada dalka Soomaaliya waxaana barnaamijku caawa taabagelinaya Etusad Sports House oo xarunta ugu weyn isboorti ee Soomaaliya xarunta ugu weyn ee qabtirtay dhalinyarada isboortiga waa Etusad min A ilaa iyo Z كمال دار وحي شاكتا ايغا ugu tagaysa macna kam yaala ma lagu dhahayo illa isad waxa laga jeeda kabaha sigsaamaha dharka kaararka biladaha koobabka waliba markii ugu dambeysay waxay keeneen iskaalashayaasha lugaha markaad ku xirato dad waxa jir lugu bir markaad la ciyaaraysa lugaha ka garaacayo suufsuufa lugaha laga yahay macna oo cimaamad ku tuur dhuuxa waa lagu ilaalina ma laga shubayo waliba waxay ku hayaan oo iyagu oo ay waxa halka ka dukaameysta ciyaartooyga horyaalka dalka Soomaaliya goboladu iyo dibaddu baana waxaanay xiriir la leeyihiin shirkadka dunida ee sporti sida kuwa ugu caansan ee Adidas iyo waliba dalka waxay keeneen agabka ugu dambeeyay ee lagu ciyaaro dibadda haday ahaan lahayn fanaanadaha kooxaha away iyo home waliba adeeg ma laga jeexay waxaan dhalinyaro waxa jira markaad u gooyso fanaanada ka qabsanaya waa arnasiida baad leedahay كون وكاجحي ما وقتهاي فانا اديق جدل المرو معنا يا كباها markad kubada gameyska ka furmayska dhaaf wallahi waxay ku keeneen kaba cimaamad ku tuur bay ku keeneen markaad saan u gashato ayaga dhan ku wada daday macna iskaalasho amal ku soo iskaalasho soo la geliyo soo lugaha u dhamaanayaan kaba saas oo la keenay amal oo ciyaartooydu dunida ku ciyaaran waliba abaal marinta Ballon d'Or oo sideedii baad heleysaan koobya waliba waxaad heleysaan biladaha lagu bixiyo horyaalada ugu weyn qaaradda Yurub wakayo wali barnaamijkeeni baan ku gudu jirnaayo haddaba Etusad waxay xarunteeda cusub ka fureen xamar weyne Viroma wali yaabkii baan ku gudu jirnaayo saaxiibayaal meel walba oo aad naga maqlaysaan hadda ninkii Hazard wuxuu leeyahay aniga ka dambeeyay yiri inuu gool ka dhaliyo ciyaartooyga Willian ayaa Barcelona waalayo birtan ugu dhuftay ta kale ugu dhuftay ugu dambeyn hoos ka dhaliyay wala isagan waa la ciyaar bare ka war Stergan waa la ciyaar bare habeen dhaweedo inta dhag looga sii indhuu taag inta kale loogu celi indhuu marka dambe hoos loogu taraarixi والله جرمال برازيل كودي يجا يسحميه marka waa kaayo hadda Hazard wuxuu leeyahay aniga ka dambeeyay inuu goosha dhaliyo marka isagu ka caawi marka laga soo tago haddana si kale ay ugu dambeeyay Hazard in uu William gool ku dhaliyo William ayaa birta ku dhuftay 2 jeer goolka kadib Hazard baa qabtay way ku waftameen garoonka gudihiisa wuxuu ku yiri waxaan ku yiri isaga inuu goolka ku laabo kubadda ee ma ahan uu birow garaac waryahay William aradu ma falan tahay war waxaanad biraha garaacay Soomaali geed goolka ku aadi baan ku yiri waxaan midda u sheegay qaybtii hore ee ciyaarta waadna aragteen inuu goolka dhalay qaybta labaad wuu u faraxsan yahay isagu aad buu u faraxsan yahay dhabtiyo
waa ciyaaryahan heer sare u leeyahay marka Hazard wuxuu leeyahay inuu William goolkaas dhaliyo aqligeeda ana lahaa waxaan yiri waxaanad biraha geeska tumaysa maaha ugu dambeyn ku toosiyaan yiri waana ku toosiyay buu yiri marka waa ka waxyaabaha kale ugu weyn isbuucan ayana ciyaara waxa kamid ah Gareth Bale iyana waxa u taala tacsiyo hadda seedigii waa isdilay Bale ayaa tacsiig galay kadib markii uu isdilay seedigiyo Alex Williams ayaa isdilay kadib markii uu ka cabsaday in caruurtiisa laga qaato maadaama ay baaritaano ku bilaabeen dadka dawladda u qaabilsan arrimaha bulshada 29 jirka gacalisidiisa iyo laba caruur ah ayaa ku wada noolaa baabuur guri ah iyo waas wadaray waayaan caravanka markii ay soo wacayeen kuwa adeega arrimaha bulshada ka war baabuur waaye wal dhaxdagan yahay marka bisqushiisa ku taalo meesh jikadii wixii ku yaalo jiifkiya ku yaalo ilmaha qolkooda ku yaalo barxad waa micna adduunkana to ka dhacaysto waxa leedahay maxay yihiin abad baabuurkan jidka iska istaagsan maxaa waad leedahay war baabuur guri dhan waa baabuur guriyoobay waa marka waa kaayo baryaana una baqayay sawirada labadiisa caruur yar ayuu qoraal ku dul qoray ka hor intuusan isdilin Williams ayaa inta baabuurka isku dhex xiray isku furay qiiq badan oo ugu dambeyn dilay markii uu muddo gaaban ku jiray Royal Glamour Hospital Bale sedigiisa iyo gacalisadiisa Ray Jones oo 24 jira ayaa ku wada noolaa dhulka qaaliga ah ee abisa dalka Spain balse markii dambe waxay dib ugu laabteen Wales kadib markii ay soo shiideen iyagoo ku dhex noolaa baabuur waa soo shiideen oo baabuur iska dhex dageenba xidiga Madrid iyo gacalisidiisa Emma oo ku jira dabayaaqada qabanqaabada arooskooda ayaa aad ugu naxay geeri Williams maadaama ay qorsheynayeen inuu ka soo qayb galo xafladda arooska Bale hadda arooskiisa gal raba wuxuu maqlay seedigiis inuu hadda isdilayo maalmahan shiid baa tacbaan ka dhigayo waa kaaya isdilay waliba booliis baa raadinayay bariyaha kan cidiisu hadda baabuur bay iska dhex dagneedo baabuurka ma aha oo lagu leeyahay hore wadada dhex fariisa ka gacma feel leele macna guriyaash la ku dhex filmay macna wax ku iimaanay mala ku qasay mala baabuurka naga leexiya qaayo ma la jirtaba wayahay waxyaabaha kale ugu weyn ciyaarahayana waxa kamid ah Ronaldo ninku ma Liverpool buu taageeray isaga Ronaldo ma Liverpool buu taageeraa isbuuc dhow waxa la soo qabtay markuu PSG ka qoostay habeenku xigtay ma ciyaarino Liverpool waxa ciyaaraysa Porto ma ogtahay waxa la arkay Ronaldo oo intuu iskana baashaalay xaaskiisa dhaladana ay ugu sii socotay Liverpool adugu ma Liverpool ayaa isleeyahay macna adugu qalbiga mu Liverpool ka taageeraa mise Porto wuxuu u daawanay wadankiisa inay tahay malaha Porto inuu taageerino waa suuragal dadku waa ka yaabeen oo maxay markii arkeen Ronaldo ayaa video saaxiibadii ay soo dhigtay barta ayaa baraha Twitterka ayaa waxa la sheegay baraha bulshada ayaa waxa la arkay Ronaldo xaaskiisa oo buul ciyaaraya kadib dhalada waxa ka socotay Porto iyo Liverpool marka Ronaldo malaha Liverpool inuu marka ciyaarteeda soo daawanay malaha ayaantan Maxamed Salah iyo raggaas kacsan ama iska fiirinay wiilka nin qabsan raba ma wogyahay magaalka mise waxa la isleeyahay ninku Porto waa wadankiisa Portugal armuu halka ugu cimaamadayba waxa kale yana ugu weyn ciyaaraha sportiga isbuucan ee la yaabka sac waa dhaawacay laacib ciyaaraha kubadda cagta sac dhaawacay nin ciyaaraha maxay isu keenay ma isleedahay sac waa dhaawac halis u geystay goolhayaha kooxda Queen Sod ee dalka Scotland kaas oo lagu magacaabo Sam Henderson 19 jirkan ayaa loo dilacsiyay isbuucyo ka hor kooxda koowaad kadib markii uu dhaawacmay goolhayaha koowaad ee kooxda balse kooxdu ayaa wajahaysa dhibaato kulanka ay la ciyaarayaan bari kooxda Dunfermline maadaama aysan haysan labadii goolhaye midkii ugu dambeeyay oo la soo dilacsiyay looda dhaawacday dasan ayaa daaha ka qaaday in sac uu garabka juka xoogan ugu geystay Sam Henderson xilli uu joogay xirada looda ee qoyskiisa goobjoogayaal ayaa sheegay in sac ordaya oo aan la ogeyn wuxuu ka xarray uu juka xoogan u geystay garabka ugu geystay goolhaya Sam Henderson kaas oo aan wax tababar la qaadan isbuucan kooxdiisa Sam wuxuu sheegay in tababarka kooxdiisa isbuucan kadib markuu sac geystay waa uu sheegay hadda goolhaya la'aan baa kooxda ku dhacdayo markii goolhayoodu hore ugu dhaawacnaa kii labaad lagu bedeli rabayna uu hadda sac dhaawacay City khatar ay ku tahay Barcelona Messi gaaw hore uu sheegaba Messi hore ayuu u sheegay Man City inay tahay kooxaha ugu cad Champions League sanadkan waliba kooxaha ugu awoodda badan inay kamid tahay ayuu sheegay City sanad ciyaareedka kan hadda fiiri City sida ay khatar ugu tahay Barcelona hadda Barcelona kamal daarigeedii ayaga garaacooyinba Barcelona kamal daari lagu uga kamal daariga dhag
iyagaa lagu ogaa. Hadda City waxaa yimaaday wiilal carbeed oo Sheekh Mansuura ayaa yimaaday oo geedka garaacaya. Marka gamaldaari waa la isla wada bartay. Hadda waxaa la soo saaray kooxaha ugu badhaysiga badnaa Champions League xilli ciyaareedkan. City halis bay ku tahay Barcelona. Inkastoo odayaasha kamaldaariga weli booskooda iyaga ay ku jiraan marka la fiiriyo kamaldaari. Haddana City u soo dhawaatay Barcelona kamaldaarigeeda. Xilli ciyaareedkan waxaa la soo saaray kooxaha kubadhaysiga ugu badan Champions League ku sameeyay. Barcelona ayaa ugu badan oo waxay kubadhaysasho sameysay 63%. Man City ayaa ku xigta oo haysatay 61%. Mujadido ayaga dhan laba baa u dhaxeeya bis. Marka Barcelona Manchester City halis bay ku yihiin Barcelona ima kamaldaariga ku qabsan bay halis u yihiin. Ma daragtay goolahayaha City iyo ciyaartoygooda goosha kubadda lagu baasana. Kabtii Barcelona camal waa shaqadii Barcelona ay hadda Ingiriiska ku hayaan. Rooney wuxuu yiri ma taqaana wallahi waxaan waa geesiyaal u yiri. Ya City markaan arko yiri cid loo dhiga malaha yiri. Waxaan Barcelona ku arki jireen ka arko yiri. Premier League insaan kamaldaari loogu garaaco. Wararka iskalsooni badan buu yiri kuwa ka. Waa yaab Rooney. Waa iska tuuri cimaamada. Wuxuu yiri City waa iska tuuri cimaamada yiri aniga. هذا مانشستر بعد هذا وانا runtan ka hadlaya wiri Manchester tan waan u ciyaarey ikuwan haddaan isku fiiriyo Manchester hadda jirta ikuwan laba sano soo socda xataa qatar ay ku tahay United in City ka daba gaartay uu leeyahay wadadkan kalsoonidii la laabay ma anaga gaari karnaa wiri asaas uu yiri Rooney marka Rooney waa la sacbaaday wuxuu yiri nimankan wallahi Premier League saama laga fadhin cid ka sameyn kartuu laha laakiin waa ka yaabana yiri hadda nimankan waa ka bilaabeen marka City Barshi ma kala wareegin hadda kamaldaari garaaca Champions League ku badaysashada laakiin wali Barcelona horeyso bal City qatar bay ku tahay waa ku soo xigtaayo 63% kuwa kan baa ugu badan Barcelona Man City 60% Sevilla ayaa ugu haysasho badnad ciyaaraha Champions League Manchester United iska baasha ku baashaashay ya Sevilla Manchester United bay ku raaxaysatay hore Manchester ma falanta ilaahay amarkii wara Sevilla xataa mid ku raaxaysanaysa ilaaha asaas idin qoray maxaa laga qaban karaa ya markaas waxay ku leeyeen Champions League aan rabnaa iyo daga weyn aan rabnaa markaas waxay ku leeyeen dad weyn iska celinayna wariya Safiilad ba ku wararsan tahay ya fiiri Safiil hadda waxay noqotay ma taqaana kooxaha isbuuci ugu dambeeyay iyo labadii kulan ee wareega 16 la ciyaaray kooxaha ugu kamaldaari garaaca Safiila kamida 59% garaacday Safiil dibsas ku raaxaysanaysa maxaa ku yaala marka maxaa adduunka ugu umideh marka wixii la dhahay waa adduunka maxaa ugu umiyay wixii laaywa maarada ka dhacay Safiil loo sadexaday saddexdan waxay ku heshay ma taqaana Manchester ku raaxaysatay Manchester isaga raaxaysatay yahu barmichan baa ku kamaldaari garaaca badnaay afaraad yaani ku badaysasha Madridna waxay ku jirtaa kaalin shanaad kooxaha ku badaysasha badnaa ciyaaraha Champions League xilli ciyaareedka kanu waayahayo waxyaabaha kale ee ugu weyn la yaabka ciyaaraha iyana isbuucan waxa kamid ah gurigii Philippe Coutinho waa tii isbuucan la dhacay wariyaha Philippe Coutinho mar dambe ka taginaya wiilkii waa habaabay labadan bilood ku maqnaadeen Champions League Barcelona ma ogtahay isniintii qaban qaaw waxay gashay inay aado ma ogtahay London halkaas oo Chelsea Champions League kula ciyaaraysay laakiin Coutinho magaalada ku cusub maalinta subaxii ka dambe waa la shaxaaday ama guriga laga dhaco baawurkiisa hal qabsado Coutinho mar dambe yaan looga tagin wiilka yaa magaalada yaan looga tagin mise wiilka dad kale oo dirisa loo dhiibo wiilku waa habaabay labadan biriyo waa wareeray ya Falebio bariyahan waa iska wareersanayo markii kooxdiisu ka tageen yaani Champions League ma ciyaari karo waa laga tagay ma ogtahay tuugo ayaa u dhacay gurigii laacibka cusub Barcelona Coutinho xilli uu casho ula baxay qoyskiisa sida uu baahiyay wargeyska Sports arintan ayaa imaatay isla maalintii booliisku wadooyinka ay la wareegeen gaariga kadib markii uu dhigay meel qaldan taas oo ku mutaysanay ganaax xidig ayaa soo gaaray gurigiisa isaga oo wata taxi balse wuxuu yimid gurigiisa oo tuugo ay waqti hore ka adeegatay wuxuuna durbadiiba la xiriiray booliiska oo durba gaaray gurigiisa tuugada ayaa ka faa'iideystay dhismo ka socday guri u dhawaa guriga u dhawaan iibsaday Coutinho taas oo fududeysay inay soo galaan guriga oo xatooy ka sameeyaan isniintii waxay Coutinho u ahayd maalin wanaagsan kadib markii xataa booliisku ay la wareegeen gaarigiisa isla markaana tuugo ay dhacday gurigiisa laacibka ayaana murugo ku qaadanaya Barcelona xilli kooxdiisu ay maalin dhaw Champions League ku maqnayd Coutinho ayaana waxa la arkay isagoo taxi soo kireysanaya iska soo raacaya marka Coutinho gurigiisina waa la dhacay gaarigiisana waa la qaatay markuu meel qaldan gaarigu dhigay marka laba maalin waxa soo martay oo Barcelona ay ku maqnayd blue iyo isku diyaarinteeda ku maqnayd
ninkii Coutinho waa ku wareeray dhankii magaalada Catalanka hadduuba kooxdii ku wareersan yahayo Coutinho la qaani aanu ahayn waliba aanu la siinin fursad fiican anu waxaan la yaabanahay Valverde ma waxaad Coutinho u soo iibseen oo kadka gelisaan un walle Brazil ku arag habaar waa leeyahay ma joogtiin Coutinho yaanu idinku kicin Neymar waad ogeedeen Brazil waa ogtiin dibkooda hal mar haday go'aan gaaran oo bixin hadii yiraahdaan ma la celi karaba marka ninkaas isku dirina haddana gurigiisa dhaco waa lagu bilaabay Said maxaad ka rabtaa nimanka Tusad Sports House ayaana barnaamijka taabagelinaya waa la yaabka waliba Tusad Sports House waa hoyga sportska oo waliba sanad ciyaareedka kan taabageliyay ciyaarihii maamul goboleedyada waliba bixiyay abaalmarinadii lagu bixiyay tartanka waliba Tusad waxay xarun cusub ka furtay xamar weyne gaar ahaan Virom laba xarun ba halkaas laga furayo waliba xarumooda kale waxay ku yaalaan isgoyska Bakaaraha dhanka KBB tabakaya madow Virom oo laba xarumood ay ku yaalaan wac telefoonka eberli xal 7911888 halkaas daa tagto waa lagu cimaamadayaa waxay ku hayaan ilaa izad dharka sportiga wali waxay ka soo kordhiyay mataqaana dharka gymka lagu aado ya ayaantan xamar waxa ka socota Soomaali waxa ka socota gabdhaha inay yiraahdaan war anagu waxa rabnaa wiilal six pack iskala rabnaa marka wiilal gabdhii wax jawal flow idin geliyeen kowde marka macawiis ku aadina mees jimka marka dharkii loogu talagalay la keenay waxa la keenay maxaa la yiraahdaa saxami waxa la keenay dhuuxa u celinay sida ciyaaryahanada dunida loo difaaca lagu difaacaya saxan hadaad gashataa lugtada qab iyo qush dil sinahata aadan wax ka dareemin dad waa lafa adag baa ciyaara geedka ya sad marka xarumahaas dhan kala xiriir waliba lambarkaas waco waa lagu cimaamadaya waliba buufiska ayaa buufis casri ahoo fanaanadaha aweyga iyo hoomka kooxaha dibadda ba hayaan waliba buufis waxa lagu buufinayaa kuwa casriga ugu dambeeya dunida abaalmarinada roosaha jaalaha kuwa lagu gamo kuwa lagu ciyaaro buumuhu wax walba oo isboorti qusaaya meel kale ha u raadino sad u raadi wali barnaamijkeeni baan ku guda jirnaayo qaybihii dhexe qarimo badan baa inoo soo socda oo isboortiga ku saabsan sidaan hadda waxa leeyahay Real Madrid si ay ugu soo baxdo Champions League wuxuu isticmaali doonaa marka uu biishii la ciyaaray lugta labaad qorshaha CIA ayuu isticmaali doonaayo waa qorshe la yaab leh maxaa keen nimankaas oo sheekada ma ku jiri jirnay CIA meesha maxaa keen asleeda ma sidaan odaga ambasada xiiran leh waa isugu toostay kamal dar waa isugu toostay ya shalmay daradu wax ka baran jiray Ancelotti wax ka baran jiray iyo Guardiola wax ka baran jiray maanta laba Champions League xiriir buu qaaday marka ninkan u jeedid madaxa xiiran leh ninkanad u jeedid geeska ka xiiran khatar iyo macal kuxdiisuba hadda waxay rabaan biishiba inay reebaan hadda biishi kulanka hor saddex ba ku dhuftaan kuwa ma maar loo hela hadda wax qorshe kale waxa loo rabo biishi oo yiraahdo CIA ayaa loo rabaayo qorshahaas wuxuu yahay in la ciyaarsiiyo Cristiano oo siida ah Isco oo ay ah iyo waliba oo Asensio Benzema iyo Bale bakeedna la iska geliya la rajeenayo wuxuu doonayaa qorshe CIA ah inuu ku wajaho ciyaarta soo aadan biishi lugta wada la ciyaarayaan Madrid ayaa ma hamba koobkan uu adda iska baraxiisato hadda wallahi waa ceeb markii saddexaad xiriir ay qaado waa idinku ceeb kooxo Euro markii ugu dambeysay koox laba sano isku xigtay qaado Champions League inta kuma oolin ya laba jeer oo xiriir in la qaado Champions League waxa ugu dambeysay Milan labadii waxay ahayd 90 waxay ahayd 89 tani markaas bay rekoorkan jibiyeen laakiin saddex jeer isku xigay inay qaadaan waxay taas ka dhigan tahay inaad dacaska isku dhufsataan oo tiraadaan inta socotiin beeraha iska falnayna maxay idinku dhacay Champions League haduu qof saddex sano iska qaaday isku xiga maxaa anaga nahay oo macna meesha ma yaalan hadday nimankan sanadkii saddexaad xiriir qaadaan wala marada ka dhacday koox ma taageeraysiine ka socda meelaha shaqa ma rabtiine ma saddex sano beelbeel iyo Ronaldo iska idin dhibayaan
saddex sano hadday nimankan xiriirka koobka Champions League u qaadaan niman yahow taageernimo iska dhaafay beeraha habarta u shaqeeya dukaamada iyo ugadgada haasaas yeela dhiig maba jira meesha miya kooxaha kale yurub maxay yihiin ha iska fariistaan iyaga qudhoodu waa ceeb mana dhacwa hadda berigii la dhihi jiray maahan buumagaabka ma ahan sideed wax berigii buumagaabka ee la dhihi jiray sodomeeyadii ma ahan waxaan aan ka sheekaynayno waa waqti casri ah oo kamaldaariga la isla bartay waa waqtigii casriga ahay haddiiba kamaldaariga nimanna iska haystaan oo saddex sano xiriir ay qaadayaan maxaa meesha yaalla hadduu sidaan wuxuu ku leeystiyay ee un diyaarinaya kula waa u gaartay inuu saas yiraahdo dadkii dhanaan ba iska jiijiifay ayaantan ya waxyaabaha kale ugu weyn ciyaara waxaa ka mid ah Aguero maalin laweyd waa carooday markii kooxdiisu la reebayay wuxuu la dagaaray taageere kooxda kubadda cagta Wigan laakiin Aguero waxaa la sheegay in taageere uu candhuuf ku tufay ya candhuuf ayuu taageero ku tufay Aguero taasoo keentay Aguero inuu dagaal galo laakiin waxa la filayay ninka inuu la ganaaxi doono balse lama ganaaxinayo waxa la sheegay inuu ciyaari doono finalka Arsenal ay la ciyaarayaan hadda wali waxyaabo kale la yaab ku ciyaar waxa kamid ah Messi wuxuu joojiyay isbuucan tababar kooxda iyadoo tababarka socda ayuu kubadii qabtay istaagu yiri maxaa dhacay Usman ha loo sacbiyo leey Usman Dembele ha loo sacbiyo maxaa yeelay tababarka Barcelona waxa weeyaan tababar kamaldaariga lagu garaacayo wali waa la isku ceebeeyaa markaas waxa dhacday in saddex dhax ku jirtay bay ahaado waxa dhaxda ku jiray ninkii ahaa Alba intuu soo orday Usman Dembele fiiq ugu siiyay tuner tag alooga si dhax labadiis lugood isku ceshay waay markaas kubadii Messi intuu qabtay yiri jooji صعب وقال غسل ولو أورينك يا معنا ما تقانا مركب ميسي وجوجيه توبركي دما سي عثمان دمبيل ugu sacabtimo malaha waa dhiirigelinaya Usman Dembele waa laga yaabay maxaa yeelay ayaanta uu miska dhaawacan yahay oo ar Usman Abi waa dhaawacan yahay Usman May waa Dembele waa dhaawacan yahay ayaa uu lagu hayaa marka odagu wuxuu raa wiilka inuu dhiirigeliyo ayuu doonayaa iyo saaxiib uu ka dhiganayaa hadda markii fiiq looga siiyay tuulerta markaas odagu kubad celi ha lagu wariyo ninka Alba waa ka dhacday marade Usman loo sacbiyo marka Usman waa soo dhiirigelin macna Usman odagaas la loo dhiibo Usman asafiicnaan Usman Dembele asafiicnaan odagaas diilu haduu odaas ku faraq xirto waafku warka kala ka cunugaas ya cunugaas odaga ha loo dhiibo hadaba soo socdo dushana ka dharbaaxo cunuga hal dharbaaxsama ku filno 18 jeer iyo 20 jeer laga dharbaaxo dusha kala ka cunuga kanu ya walaad Usman Dembele hadda Barcelona cunta kariye u sameeyo ila cunugu waa un khabar Usman khabar weeyaan cunuga ma qoyna cunugu qoyan ma aha cunuga soo dhan hadaad aragto waa wiil yar khabar oo caatay iska dhacdhacaya waxa la arkay markii dhaweyd asoo kubada kor ku faya xataa qofna u gambin karin waqtigiisii Borussia Dortmund caatinimo lagu nacay haddana caatinimo marka Barcelona hadda korba Neymar san uu caatu waxa waa la fitamiinay kowde hadda Usman waxa loo diyaariyay nin ku fiicna kariye fiican baa loo diyaariyay oo wiilkan qoynay cunugan anjag waa yiri qalaj cunugan waa qalalayahay qoy ayaa la yiriyo marka Usman ninkaas baa loo dhibay Usman cuntiis waxay 5 cunu jira 5 waxa la yiraahdaa cuntooyinka fudud baa la yiraahdaa marka cuntadaas uu jiriyo wiilkan wiil sambuus una la waxa war waxa cunuga shubha laga dhigay maqaayad Suarez xataa hal geey maalin biisa iyo hal soo noolay baa la yiri wiilkan marka waa ka Usman qabar ولا اليوروب ليغا maanta isku aadkiisu waxa ka soo dhex muuqday Arsenal iyo AC Milan labada kooxood ayaa la isku aadiyay wareegga 16 Yurub League hadda wareegga 16 soo maray maxay soo dilay bay ahaayeen marka wareegga 16 Yurub League waxa la isku beegay Milan iyo Arsenal haddaba laba kamid ah kooxihii Champions League ciyaari jiray ayaa maanta Yurub League aynaya shalay waa Champions League jireen haddana waa Yurub League aynayaan shalay waa 4 iyo 3 jireen haddase waa khamiisaynayaan AC Milan xalay waxay ku badiyeen gool u dhaliyay Fabio Purin Arsenal xalay waa lagu dhaliyo lagu dhagayo laba gool baa looga badiyay saas oo Arsenal waa soo baxday maanta sugaadka baa la sameeyay labada kooxood baa isku beegmay hadda wala labadan kooxood isku soo macaadeyno hada xasuusta labadii kutumikoodii iyo Ibrahimovic uu ku daldalay goolal iyo mar waxa jirtay 2007 mar oo Kaka la celi waayay Flamini loo dhiibi jiray hatta Milan Flamini markuu Kaka oo tilaa badheeroon celi karin u celi Milan waxay ku qasbanaatay hatta Flamini qaadato maati Flamini
marka labadan kooxood hore Champions League way isku soo arkeen laakiin markii ugu dambeysay ee Arsenal iyo AC Milan ay kulmaan waxay isku arkeen Champions League 2011 iyo 2012 Milan ayaa ku soo baxday Milan ayaa soo baxday Arsenal waa la reebay sanadkaas Champions League Milan ayaa kulankii koowaad 4-0 ku adkaatay markii San Siro ka dhaceysay kadibna Milan markii Emirates la keenayna 3-0 baa lagu dhuftay hal gool oo dhineed 4-0 si u noqotay ciyaarta bareejo loo galo waqti eri lagu daro laakiin Arsenal San Siro markii 4 lagu soo dhuftay eber iyagu garoonkooda 3-0 bay ku badiyeen sidaas baynu ku harayno marka hadda labada kooxood Milan iyo Arsenal walaal ku torwaya wara Yurub League cumado yeesha ka warayaantan ya walaal daawasho leey geedka daawasho leey kamal darigaas ya dadka qaar waxay leeyeen ma rabna Yurub League dhigi jiray mogtahay habeen khamiisaad oo jimco soo galayso ya si bixi jimco soo galayso kamal darigaas oo loo fadhiisana cimaamad weyn uu leeyahay kamal dariga ya Milan Arsenal waxay leeyahay taqana waa reebayna Milan منو أورد مان ديا إسجرة كتوزاوتو ما حيالي كتوزميلا وحو كاديجي كوحبو كاديجيو ولي بوحو يالي سبيريت بو يالي مالين بو واحد عضي انتو ميلان انت لقيتو توما يبا وحيتو حناغي وتوبركا يو حفيزكا تغي كتوزو maxaa ku helay maanta warqad cadi soo bix inoo sheeg yaa katuuso maxaa ku helay madaxdii loode warqad cadi soo bixiya inoo sheeg yaa katuuso maxaa wanaagsantahay maanta mi soo bixinaysin warqada mi soo bixinaysaan wala soo bixi qalin halay dhiib waaba iska casilay shaqada tan ar maxaa dhacaya qay adigii ma is casilay dad waxa arki jiray casil ay adig is casilay way is casilay wiirma war ilmaha dhiig malaha buuru maxayin war yaanu waxaan soo garab ciyaaray niman dhiig loo shaqaysanayo war ilmo dhiig leh wayaan kuwa kale lama joogi karo yiri tani maalintaas ilmii dhamisbaas la maray waa kacsiin marka Milan iyo Arsenal ma ku tuuro kulankaas wallahi ciyaar kale muhiim ah soo baxday waxyaabo kale isbuucan in ciyaaraha weyn la yaabka waxa kamid ahaa Messi iyo Ronaldo lama la jooga rag waxa soo baxay goolka aan baarki karina soo baxay goolka haday arkaan waa bururayaan ya marka barasho wanaagsan saaxiibayaal reer Messi iyo Ronaldo barasho wanaagsan kuwan waa xidigaha 30 gool iyo wax ka badan xilli ciyaareedkan ka dhalay tartamada oo dhan 5 real weyn qaarad dirub ya afar nin wa afartaas ninaad u jeedaan sanadkan soconaya horyaalada waa tartamada dhan waxay ka dhaliyeen gool aad u badan bay ka dhaliyeen taas oo ka badan Messi iyo Cristiano Ronaldo hadda Messi sanadkan tartamada oo dhan 30 gool ma dhalin Ronaldo sanadkan 30 gool ma dhalin tartamada oo dhan waxay indaas u taagin mar hore laga soo xaqiijiyo wax ka ya marka Messi iyo Ronaldo malaha odayaasha waa ka daba timid markan niman la yiraahdo Immobile Harry Kane Edinson Cavani iyo Mohamed Salah waa afar nin oo ka kala ciyaara horyaalada France England iyo Italy waxay sanadkan dhaliyeen goolal aad u badan bay dhaliyeen 30 ka dhaafaya waa ciyaaryahanada xilli ciyaareedka 30 gool wax ka badan ka dhaliyay tartamada dhan ee ka ciyaar 5 real weyn qaarad Yurub hatta Messi iyo Ronaldo ma sameeyay marka wax walba Messi iyo Ronaldo lama dhihi karo mar walba niman waxa soo baxay shaqo u diyaara Mohamed Salah Allah ninkaas maamul waxa la gool cajiiba Cavani la yiraahdo goolka lama arki karaba Harry Kane baa la yiraahdo Harry goal wayaan Immobile asawna xalay ma aragtay wuxuu ka dhigay ciyaaraha Yurub League Lazio gool haya hatta wala wareysanay waa loo sheekeynay inta dadii degneed baa la dhahay goolka laga dhalinay afartan nin odayaasha kuma dhacan odayaasha sidii horma ayaantan odayaasha sidii horma ma ayaantan oo markasta kulan gool ma dhalin karaan kulan walba ya nimankaad arki jirtay Ronaldo 15 ciyaar wuxuu gool dhaliyay Messi 15 ciyaar wuxuu gool dhaliyay jirmo odayaasha ugu fiirsaday afar kulan isku xigta gool ma dhalin karaan Mohamed Salahna maalin kasta gool iska dhalana waa dhali Liverpool ma ciyaarta waa dhali waa Liverpool ma ciyaar Mohamed waa dhali على مرة محمد سنة كان wax kala wa odayaashu waa soo qabsadeen laakiin mararka qaar hadii laga fiicay waa la sheega masaas waxyaabaha kale ugu weyn ciyaaraha iyana ugu weyn isbuucan la yaabka waxa kamid ah Mourinho waa la galay Mourinho waa lagu maadeystay oo majaladaha Spain way ku maadeysteen kadib markay safiilay ciyaar bartay kooxda Man United Manchester tii dhamay ee weyneed markii la ciyaar baray marka waxay tiri oo Spain way adag tahay inaad guuleysato marka aadan doonin gool waruntud yaani hadaad ugu talgalin inaad guuleysto ma guuleysan kartid marka waxa ciwaan looga dhigay Mourinho sida loogu bahdilay ciyaartiisa fiila kooxdiisa way adag tahay inaad guuleysato marka aadan doonin gool marka ninkaas Mourinho iyo kooxdiisa waa la labo ma rabaan inay guuleystaan marka Mourinho
حتى سفيلة ما كبقيا إلهي أمر كيسوا يا يا إسكي خبان كرتا هاي مركا أديد بس سفيلة حساسك أودو عبسانيسو أود مقار ساسكو قراعي سمحاكو يا لمركا waxaan ba ka maqlayaa reer Manchester maalweyd anaga bareebi karna Barcelona Real Madrid iya marag safiila ay ceebeynayso oo marag safiila ay cadaabayso ayaa maru hela kuwaas wallahi gacmaha ma laga gooyna Master Safe lad ku nooshi maahayna marra idinka tumilaha ninkan digaya ayaa dadka ka yaabinay mooyaan hadaanu safe ahaan lahayn mar hore ayaa tiradii soo tumilaha ayo safiila hadda waxa la arkay ciyaartooyda inuu gool badan ka badbaadin ninka kan ee leeyahay safe marka Mourinho iyo kooxdiisu waxay rabaan baa laga yaaban yahay waa waxa nimanka ka waxay rabaan aad baa looga yaaban yahay niman safiila xataa ku kor wareeraya walahi nimankaas niyo hadii wax kasta la keenay xataa saas la u yaalan sanjisan la keenay saan waaye kambalo waaye waxaan dhaafayna malaha kooban qaadaynin malaha algu hayn jiri Barcelona xataa anuga tumayno Real anaga tumayno wax walba bay ku hayeen marka haddaba sida ayaa nimanka kan Manchester United safiila oo safiilna u cadaabayso manin Barcelona manin safiila ku weerarsan ba Barcelona iyo Madrid wax ka qaban la odayaasha waa weyn kama wada waxaad rabtaan inaad isku dhacdaan kamal daariyaasha loogaga harayba labada diiqe adduunka ayaad rabtaan inaad isku daysaan ayaantan iyaga kamal daariga xukuma man loo dhawaa kar labadaas ilaahay kaaga soo gurmana maahine si kale ma loo gali karo markaas waxay ku leeyihiin nimankaasaan reebayna safiilana saasi u cadaabaysaayo kamal daari ku garaacayaan marka aanan rabin inaad guulaysato ma guulaysanaysa hadda wayba adag tahay inaad guulaysato marka aadan badoonin inaad guulaysato marka nimanka kan Manchester waa kay marada ka dhacday todobaadkana warkii ugu weynaa Henry ba ka hadlay Henrya wallahi Henry ninkii Messi cimaamad maane shal xataa waa ku tuuray cimaamad weyn buu Messi u saaray isbuucan Henry Arsenal لاعبka legendga Arsenal waxa uu sameeyay cimaamad weyn tu soo qaaday ayuu odaga Messi madaxa u saaray waxaan u leeyahay adigan gaaban cid kula tirsan karta malaha oo kamal daarigan kula sheegan karta malaha intaad adiga joogtid adaa kamal daariga ugu fiican intaan kala ma aho waa isku orday maayna shaqo ku balaa kamal daari oo cad ayuu yiri Henry abada gafur waa bala taago ilaa iska oge ya oo cad ayuu yiri ka waran Henry Thierry wuxuu taagayaa Messi gaabo hal laga dambeeyo wuxuu yiri ma garanayo Neymar sheekada Neymar ku soo bilaabatay ilaa Neymar soo ma dhihin hooska Messi uu ka baxay hooska Leo ka baxay hadduu hooska Messi ka baxay muxuu Bernabeu wax ugu qaban kari waayay ya hooska Messi uu ka baxay markii la lahaa waxa la filayay inuu nin dad hogaamin kara yahay hadda waa wiilkii meelaha dadka dhan wada gagabinaya kubadda dhan bagambis ka dhigay ee aan bila natiijada ahayn marka Henry soo imaaday markan Henry wuxuu taagan yahay yiri Messi hooskiisa ka baxa haddaad waxaad tagtay ilaa Maghrib iyo Mashrib haddaad aad Faransiiska kugu yiriyahay kula haddaad aad wadanka ugu adduunyada meesha wadanka ka aado Messi ku daba tagnaa hooskiisa yiri saaxib intuu Messi joogo hooskiisa ma ka harayo adig kaliya maan dhammaan cayaarinada kubadda cagta dhan asay ku hoos jiraan asaga fiican waa macna warkaas waa cadi wuxuu yiri ma garanayo hadii Neymar ugu tagay Barcelona inuu ka baxo hooska Lionel Messi hadduu Barcelona ugu tagay Messi hooskiisa ka baxa oo Messi wax walba asaga iga qaadanaya hadii aan aasug ag joogo wax ma noqonayo haduu leeyahay runta waxay tahay ciyaartooyda oo dhan ayaa ku jira hooska Messi dhammaan odagaas hooskiisa ku wada jirtaan hadii uusan Neymar doonin inuu ka dambeeyo Messi waa inuu raadsado ciyaar aan ahayn kubadda cagta basketball ka iska aad ciyaaraha sports waa badiyeen sports waxa rabta ka raadso adiga iyo isdarka kale ninkaas una laga dambeeyo u leeyahay marka Henry warkiisa wuxuu yahay war cad weeyaan oo qof kasta wuu qarsoomayaa inta uu Messi jiro hadduu Messi jiro qof walba wuu qarsoomayaa ayuu leeyahay haddaan laga dambeeyin isagana sportiga nooc kale ha laga doorto sports waa badan yahay orada jirto xirg jiida jiro dherijibisa jiro taynisa jiro hameel kasta ka baaskida jiro ya handball baa jira wax kala raadsid uu leeyahay haddaan odagaas cid gaaraysa ma uu leeyahay odaygaas hooskiisa ku wada jirtaan baa dhammaantiin aan ku hoos jirtiin maalintu asaga baxo waxaad noqonaysiin niman la yaqaano xirfadiina maalinta soo baxaysa laakiin odagan hadaad arkaysidba nin kale ka laacibsama ba jira marka waxa la Neymar iyo ciyaartooy kalaba beeraha iska fashta haddaad odagaas ka dambeeynin odagaas haddaad ugu dambeeynin inuu yahay laacibka ugu fiican Kamal Daariga haddaad ugu dambeeynin
habar xaliimo yaambada ka qaata beera u fala saas ayuu leeyahay Henry ya meesian ka orda ma tiri hooskiisa adiga kaliya ma lagu ciyaariyaan dhanna hooskiis ku wada jira asa ayna ka wada ayaa say ka dambaynayaan wala usbuucan cimamada waa loo saaray odaga iya hooskaas lagu wada jira hooskaas lagu wada jiro yani ninkan halaga wada dambeeyo hadii kale kubada cagta iska dhaafa xidigaha oo dhan beeraha iska fashtaan warkaas war cadwa Henry isbuucan wuxuu cadeeyay xidigaha oo dhan inay tahay inay Messi ka dambeeyaan oo hooskiisa ay ku jiraan intuu joogay isaga uun ayaa kaabaka kubada cagta cid kale ma jirto waxaan kabal iska wada qaadanay maayni banuun inay aadaan banuun inay raacdaan badilay mooyaane odagaas ma gaari uu taagan yahay macna kamal daar la idin dilaa maayni inaad kaba iska qaadatiin iskaashi ku daaleysi limaayni odagaas ma gaariisin uu taagan yahay warka Henry mal dilaa maxaan ku sameeynaynaa annaga maxaa laga qaban karaa warkaas ya Lukaku-na waxa isbuucan loo doortay xidiga ugu cagta weyn kubada cagta xidiga ugu cagta weyn ninka cag weyn kamal daari ma ciyaar aw Lukaku ma dartay war ninkan waana cag weyn yahay da'diisa la hadda war isku haystaa war markii uu yaraa yiri markuu ninkan 10 sano jir ahaa waa lagu murmi jiray cunug yariis isla dheelay macna cunug ileen 12 jir wala ma u tahay asaga 12 jirkiis wuxuu muuqday 20 jir cunug waaya saan soo fiirna markuu Lukaku oo saan u shub u feer weyn markaas dadku yaabi jireen markaas dadku waxay dhigi jireen war ninkan waxa uu yahay ilmaha ninkan weyn ilmaha la dhax ciyaaray muxuu yahay bal dhigi jiray habartiis ninkan ilaa hadda wuxuu ku dilay ilaa ay tan markaas waxay ka dawadaa warqada dhalashada ka dawadaa wariya wiilka idaafaya wariya idinka wax ku darsay wiilka wariya dhalashadiisa fiir wariya wiilka 12 jir wa ilaa al'aan tan markaas habartiis waa wareerin ninkan waa daali hadda Old Trafford markay ciyaar ciyaar korey fadhisaa markay dadku ay ku marmaan ninkan ninkan meeqa soddon mas jira 40 miya markii la leeyahay warqadii la soo bixi dhalashada ka dawada maxay la cid yeelaysa malaha ninkaana 20 iyo wax jir cid yeelaysa malaha hadda Lukaku isagoo da'diis dadka ku dhibanaayeen iyo shubnimadiis dadka ku dhibanaayeen ay hadda waxa lagu sii haystaa ninka cag weyn ma jira kamal daari ninka ugu cagta weyn kamal daariga wuxuu ahaan jiray in Afrikaan wuxuu ahaan jiray nakawaanu hadda ma ciyaaro hadda kamal daariga balandiyoorka cag weynida waxa qaatay ninka la Lukaku ma aragteen markuu orday waxa leeyahay waxa soo digdigleynay maxaa difaacida qaar xataa dhul gariida ku dhaca markay digdigta ninka kan u maqlaan aqli la marooya macna marka waxa lagu leeyahay Lukaku waxa loo doortay xidiga ugu cagta weyn kubada cagta xitaa maanta ayaa yaabay marka uu isku baroobay kabihiisa maanta markuu gashtay kabaha Lukaku qosol u lacay ilaahay ka yaala sirwaakiyo maxay tahay ya taxi waa gali kariya lugtaane ya waa laga yaabay in karo maanta qudhiisu intuu isku baroobay uu yaabay marka abaalmarinta kabweynida cagaha kabaha la gashtay ninka ugu weyn ninka kan wayaan marka Ronaldo Neymar Petkovic Ibrahimovic iyo kuwa kalena way soo galeen liiska cagaweynayaasha lambarka kabaha ay ka xirtaan laakiin ninka ugu lambarka weyn cagaweyne waa ninka kan eedaado Lukaku ya Lukaku korka le malaga weyno korka le malaga weyno lugahana dhulka markay jugjug ku dhahan difaac waa iska ordaa macna dhulka riir ma dhulka soo kala faliiro islee macna tusad Sports House ayana caawa barnaamijka kan ee la yaabka dunida caawa taabagelinaya waana taabageliyaha barnaamijka kanu ee Sadwa Sports House waa hoyga sportiga dalka waxayna ku hayaan ilaa izad oo dharka sportiga haddaba haddaad tahay qof dhalinyaro sporti ah waa inaad la xiriirtaa dukaankii sportiga haddii aad tahay nin sportiga la xiriira ama haddii aad tahay nin sportiga ku dhex jira wax walba sportiga ku saabsan tusad baad ka helaysaa waayahay haddaba haddii aad u baahan tahay inaad xiriir la yeelato tusad oo aad ka adeegato ka dukaamaysato hadday ahaan leed si jamaci si gooniyaba waxaad ka wacaysaa oo telefoonka Everly hal 791 waliba xarumooda waxay ku yaalaan isgooska bakaaraha KBB tabakaayimadu xarun bay ku leeyihiin Virama laba xarumood ba xamaroyn ugu taalo midaad rabto ugu cimaamado shirkadda qalabka sportiga wadankeena
waryaa isbuucan ugu dambayn baan maraynaa qaybii ugu dambeeyay barnaamijkeenu baan maraynaa la yaabkee waryaa Manchester dagaal baa ka socda Mourinho hadda way isdagaalsan yihiin ninka la yiraahdo iyo Pogba way isdagaalsan yihiin isbuucanna waxa la arkay markay Champions League u ciyaaray Pogba oo waxa la arkay eeji ku qabanay micnaa baabeen uu hagarayna ka war ariya hagar ma dhamaanaysa ka war waxa maqli jiray birig la yiraahdo waxa maqli jiray waryaa ilmahayga hagarayna waryaa ilmaha hagarayga dilin waryaa cunuga ko hoosayga kudin gacmaha inta laga saaraa inta gadaalo hoos lagu cilaan waryaa cunuga hoos ay cilaan lii jiray sawirka usbuucan u haystay baraha bulshada wuxuu ahaa Pogba oo waxa la arkay inuu malaha hagarayo Sanchez baa la arkayo malaha waa ka masiirsan yahay ilaa mushaaraad ka badan baa la qaatayo gaay buu meesha ka noqday moogtay Sanchez waxa la arkay labadu is daba socda oo Pogba uu خنج ماشي تانو قورت انتو كقبتي سان وكودايو فير عمل خضر باحي عمل وحو صلاحيو فير نقول اخرنا كور وحال ليهي يا سان كدريوا وجهك ايو فير ugu صلاحيا اربوبا waxa saaxiibtinimo ka weyn baa leeyahay oo isbuuc waxa la arkayay waxa gareeray ninkii Sanchez ah yaanu kugu kicin ninkaas gaaban qatar weeyaan ninkii Ramos ana waa tacbaan buu noqday si Rossi jallo siinay ya hadii awal marin lagu bixi lahaa asaa la siin lahaa hadii awal marin lagu bixi lahaa ciyaaryahanka ugu jaalahay Rossaha baa la siin lahaa bal doorkiisa ninka asaa qaada lahaa cid ka qaadaleed ma laha 163 jaala ayaa la maray horyaalka Spain Rossahana waa ninka ugu badan waxa uu noqday ciyaaryahanka taariikhda ugu jaalaha badan iyo ciyaaryahanka horyaalka liiga ugu Rossaha badan buu noqday labada record bas isku haysta cid uu meel ka sii mala ninka ugu Rossaha badan waa isaga ninka ugu jaalaha badan waa isaga la liig marka ninkan waxa uu qalmaa malaha in la siiyo abaalmarinta alwaaxa ee la siiyo ciyaartooyga akhlaaqda daran in la siiyo weeyaan maxaa yeelay waa ka uu jaala iyo Rosso dal dashayo hadda ninka kanu rekoorkiisa malaha cid gaari kartaaba lahayn marka qaar marka jaala siinay wuxuu ka jecel yahay in Rosso la siiyo fiiri sabarada fiiri jaala markii la siinay waa xanaaqa laakiin marka Rosso la siinay waa iska qosla marka ku noqo gogolayaha gogluhu gal fiiri ninkaas oo jaala la siinay ama Rosso la siinayo jaala markii la siinay waa xanaaqa Rosso markii la siinay waa qosla wuxuu ku leeyahay marka war Rosso ba la jecel yahay inta jaala siinay Rosso si an Rosso ba ka helaa wala taagayaa macna ya waa kaayo waya waxyaabaha kale ugu weynaa isbuucan kamal daariga waxa kamid ah horta Chelsea iyada maxaa kabta Barcelona u galiyay Chelsea warkeedaba ka dareewa goolka isbuucan ka dhashay Chelsea kama dhalan lahayn waliba Chelsea waxay u badneed inay ciyaartooygu badiyaan gool ku badiyaan laakiin dibka Chelsea qabsada wuxuu ahaa Chelsea iyada ayaa gashatay kabtii Barcelona marka maxaa idin gelinaa ninkaas kabtooda fiiri kubadda goolka looga dhaliyay goolka agtiisa ay ku baasbaasteen waa laga dafay lagana dhaliyay in goolka agtiisa lagu baasbaasto kubadda in gool hayaha loo furo waa kabtii Barcelona iyaga ayaa sheekadaas looga dambeeyaa oo ku dheereeya marka maxaa kabtaas idin gelinaa ii sheeg marka kabtii Barcelona maxaa dalaq u siisanaysiin ii sheeg goolkaas in Chelsea laga dhaliy wuxuu ka dambeeyay goolka ku dhax baabaasteen kubadda kabtaas ma idin gasho geedkan iska gamaydi ka ahaan jirtay maxaa idin gelinaa kabtaas marka nimankaas ma loogu tagay kabtan wad aragteen goolka la isaga baasa gool hayaa loo dhiiba meeqa habeenan waxaan dhahay kuwan shame laga dafa ilaa hadda ma laga dafayo goolahayooda kubadda gool hayaa loo fura gool hayaaba ciyaaryahan kala waa oo garoonka ku jira Barcelona goolkaba iyo dhaxdaba u tagay weeyaan marka Chelsea in goolkaas uu ka dhashtay waxa ka dambeeyay Chelsea iyada qaladka leh iyada ayaa gashtay kabtii Barcelona ee ah in kubadda lagu baabaastay goolka dhexdiisa kabtaas iyaga baa iska leh yaan laga daba gashan kuwa ka hadaad gashatana waa laga dafa sidii habeenkii oo kale marka Chelsea habeenka inay badisay ku dhawaatay waayahayo ninkii Messi hana check Buffon no iyo xaliyo Chelsea habeen dhaweedo Chelsea ahayd wuxuu hadda ka dhalanayaa gool cid walba oo la yiraahdo kama dhalin balaaye ka jirto waa Messi oo la isku magacsada marka uu leeyahay waayo waxyaabo kale weyn isbuucan yarta waxa kamid ahaa Chelsea Barcelona kii badi ayaa koob ku qaaday baa leeyahay sidan waxa dhacday 2006 2009 iyo 2012 labadan kii badi ayaa Champions League ku qaadi jiray weligeedba waxa kale la leeyahay isbuuca kano waxay leeyihiin difaac ugu qaalisan ayaan haysanaa hal milyan xitaa shabaqo kama ilaashan karaan City marada ka dhacday niman ku wareersan wigan ayaa waxay leeyihiin Champions League wax ka qaban karnaa wallahi Champions League hororad ma aha Champions League kaas ilaahay inuu kugu saaciday ma ahine kaas ka dareewa hadda City ilma yar wigan bay kari laayeenba war saddexdii ciyaar ugu dambeysay wigan iyo City dhaxmartay wigan ayaa badinaysay حتى ست كوبا laga qaaday sidaas darkiis xoog weyn lagu leeyahay wigan la tusmicnaa ayaga iska ordaaw waliba waxay yiraahdeen difaac ugu qaalisan baan haysanaa waxa gool ka dhaliyay hal malyan ayaa gool ka dhaliyay fiiri difaaca City isbuucan u ciyaarayay
waxay ku fadhiyeen lacag badan 1 milyan baana shabaka ka taabtay yaanu idinka fakan Premier League iyo Liga Cup-ka kan dhaga weynuhu kaas nin wiigan ku wareer waxba kama qaban kara malaha ya anu waxaan idin leeyahay Premier League yaanu idinka fakan wayayo markaan qaybaha la yaabka dunidu ayaanu eegi doonaayo saaxiibayaal waxaad nagala socotaan idaacadda Sportiga dal Gol FM goboladu baad naga maqlaysaan iyo Facebooka wayayo la yaabka dunidu baan markaan eeginaayo waxyaabaha ugu la yaabka lahaa isbuucan ee adduunyada ugu weynaa ayaanu eeginaayo haddaba isbuucan waxyaabo ugu yaabka badnaa waxa kamid ah guurso gabar 30 jir ah oo hel $5,000 adduunka ciidamad badanaa taala adduunku aboo gabadhan la aroosa taal lacag aan kugu siiyaa taal $5,000 ayaad helaysaa haddii aad guursato gabar 30 jir ah warkaas lagu noqonayo waa war cad oo cad hay'ad khayri ah ayaa dalka Sacuudigu ka bilowday inay ka hortagto doobnimada gabdhaha oo ku sii badanaysa dalkaas gabdhii waa iska fafadhiyaan oo nimanna ma soo dooranayaan wali waa iska joogaan si taas looga baxo doobnimada u yaraato dawladdu hadda waa hay'ade waxay bilaawaysaa in gabdhuhu doobnimadu laga saaro oo loo cimaamado si loogu dhiirigeliyo wiilasha inay guursadaan gabdhuhu gaaray 30 sano ayaa madaxooda loo duldhigay lacag uu ku qaadanayo ninka guursanaya ololo ahaan ayaa loogu magac daray guurso gabar 30 jir ah oo hel $5,000 ciidamad weyn waa adoo ilaahay amarkiis maanta gabadhii ku dajin lahayd lagu geynayo oo qoys aad yeelanayso ilaahayna aad kaga ku raali gelinayso inaad qafladii waxyaabo xunad ku dhici lahayd ayaan waxa lagu gudarayaa $5,000 30 jirna waba gabar meeshii laga rabay ciidamad bay leedahay oo hadda ma la dhahayo aqli ma laha ma la dhahayo meesha ugu fiicna dumar waa shuruud waxa ugu muhiimsan ah in gabadhu ay gaarto 30 sano isla markaana aysan weligeed soo marin guur kale ayaa muhiima haddaba haddii aad diyaar tahay walaalow ama wiilow ka faa'iideyso fursadaasoo $5,000 la bood 30 jir carbeedna hore u daarso xamar weyna la tagtaa ama gobol la aadaa ama beeraha dhex dejisaa adiga leewa aniga linkiska ku soo dirayo warka ka ya adiga leewa 30 sano hadda maanta gabdhuhu 30 sano markay gaaraan ceeb ma ahan war waxa hadda kuwa kan waa mactiyo wayana ilmo waa kuwa kan hadda warka laguma karayo kowde ya laakiin 30 sano jir aqligeedu waa kala go'ay lacagad u dhiibay qayb ashuunka kugu shubay qaybna waa ku siinay ya naag wax fahmaysa waa marka Sacuudi barwaaqa taalo markay adan waxay leedahay gabdhaha doobnimada in laga dhaafo 30 haday gaaraan loo cimaamado marka ninow adiga leewaay ilmahayna waa kuwan ayayda leewaay shankuna labad gabadhaas carbeed ee muslimadana ku cimaamado yaani guursan kala jeeda wax weyn waa cimaamad ku tur waxaan anigu dhihi jiray ay cimaamad weyn waaye ha cimaamad weyn waa adiga leewaay macna Soomaali la soo aad Yemen la dhex tagtaa Sacuudi la dhex joogtaa ya laakiin Sacuudi ila emergays adu xaajidu Sacuudaas ku qabanaabo birna xamaraska soo tuura yani gabadha meesha ka qaba xataa ma ku fahmay ilaahay amar Sacuudiya nin Sacuudi joogo qada ku tasho Sacuudi ku ogeyd ninaad ba Sacuudi ku og tahay xamar qada kaga tasho ama gobolka qada kaga tasho maxaa yeelay wala soo tarxiilid maqli wali qaybihii la yaabka waan ku gudi jirnaayo waxyaabaha kale caawa ugu weyn la yaabka dunidu waxa kamid ah haweeneyba waxa la leeyahay isheedu waxa laga soo bixiyay 14 gooryan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ilaahiya nin daya wuxuu dhigi jiray cunugiisa markuu wax soo gaaran wuxuu dhigi jiray aabe ya qay waan nacay wallahi ani saan waa ku daaliyaa markaas wuxuu dhigi jiray qodaxa muday moogtay aabe ya qay way xanuunta qodaxdatan markaas adigu wuxuu dhigi jiray wiilkeygiyo aabe وحدا كوغو دحاي waxu ilaahay ka haya ka weyn islaamka qofka waxa la rabaa aqeeda inay ku jiri kartaa la rabaa loo ay wax walba kugu dhacaan waxa la rabaa inaad ilaahay kaga shukriso
maxaa yeelay wax ka weyn laga haya saaxiib yaa wax ka weyn ayaa laga haya marka odaygaas wuxuu wiilkiisa ku dhihi jiray wiilkaygiyow waxaan haddaad ka cabanayso wax ka weyn buu ilaahay ka haya wiilku ma saaqanin ma ogtaa wiilku mas baaqanin ayagoo safar ku jira wiilkii marka boorsan waa wadaa masna waa qan wuxuu yiri aabba yaa qay way xanuunaysaa yaa aabana ma socon karo yaa qay yiri wiilkaygiyow yiri aabe waxuu ilaahay ka haya ayaa ka weyn wax hadda kugu dhacay fiiriya hadalkiisa uu iskayna fiiri markuu wiilka maska qaniini xogayr dib u dhaceen magaalada u socdeen oo waxa la tagay oo basbaashi dib ka kacayo dadkii dhan ay wada baabeen ka waran hadaanu maskas qaniin lahayn ka waran waxay kamid ahaan lahayn qoomku dabka qabsaday kamid ahaan lahayn marka islaam dhab ah waxa weeyaan ninka u dareema haduu maanta ilaahay wax ku salido inuu ilaahay wax weyn ka inuu ilaahay wax ka daran uu ka hayo saasa laga rabaa dhalinyaro waliba qofka dhalinyaradu ayaa aad u si fiican uu ka faa'iideysto marka hadaad dhalinyaro tahay marba hadaad qaybahaas barato ilaahay ku xirnaansho had barato meelaha dahabka iyo diamondka laga helo ilaahay xaqiisa tahay meelaha maanta baababka albaab kasta in lagu furo rabo hadaad ilaahay xaqiisa aado sirta ka qarsan wax kala ma ahan nin dhalinyaro marka tahay oo cimri dheer aad rabto inaad ilaahay dunyada ka gaarto meel waxa jirta dahabka iska buuxo oo diamondka iska buuxo oo wax laga soo diiday ma yaalo ma lagu dhahay nin Soomaaliyeed biru taga isku leeyahay orna bir ma ha isku leeyahay laba birid wax ku siiyo maalin saddexaad ka soo kuura laakiin hal meel waxa jirta si ho ma ka dhamaanaysaba marka waxa weeye meel kale ma ahno rabbiga in lagu xirnaada la rabaa dhalinyarnimo yaan ku qaadin dhalinyarnimadu waxa la rabaa ugu faa'iideysato ku xirnaansha ilaahay markay wax kugu soo dhacin ilaahay xaqiisa oo adil ilaahay iyo cimaamad ilaahu waa gabar baan rabaa ilaahay guurkayga iga bixi ilaahu wuxuu yiri ilaahay wuu ka carooda adduunkiisa haduusan bariyinba ilaahay war fiiri ma aragtay qof bini aadam maanta waxay sidii kugu naca laakiin ilaahay wuxuu kugu caroona inaadan bariyin kugu caroona waa dambiya inaad ilaahay wax weydiisan weydo waa kugu dambi walow meesha diamondka dahabka jannada wax walba laga helay liibaanta adduunka iyo aakhirada meesha laga helay waa meesha ha marka waa kaayo marka maanta waxaan saasanaynaa balaayan ilaahay saahu anaga kana nahay anaga gooryaana na dil anuka gooryan shimay hadda noogu dambaysa anaga gooryan caloosheen xataa ma ku jiro ayaan tan gooryan laakiin ya ilaahay isaga jiro xataa lagama yaabo bariyahan barigii hore gooryanka wana laga soo sibi jiray laakiin ayaantan maxay tahay daawada ma si kala noqotay ya wallahi waxaan xasuustaa sanadii 2098 iyo 2001 ilmaha markii kununi gooryan la siiyo abaadkooda musqusha laga maqlay waa cunuga maxaa iga helay cunuga maxaa ku dhacay ileen gooryaanka soo dheeraano micnaa cunuga markuu in xilsiinayo ya gooryaanka dheeras arka marka cunuga oyna markaas inta warqad qabsan loo siibi jiray ilmaha kaliin gooryaan fiiri haddana gooryaan cunugina ku dhaanay wax naga soo socdo mala maxaa isbedelay marka maxaa isbedelay madaawadiya sidii horaan wahayn maxaa jiray noo sheega ha ilmaha gooryaan hadad cunta cabada waa laga soo siiba habeenkii soo noola musqushu ku dhaxdhaca ayaantan waa la cunoyle jawana la cunoy ilaa hadda wax ma soo dhacoy marka hadda naagta taa waxa lagu leeyahay indhaheeda 14 gooryaana laga helay hay 14 gooryaana indhaheeda laga soo bixi macna marka maxaa balaayada sheegnaysa maxay tahay marka waxa laga haya marka waba yaabi lahayd wax weyn baa laga haya waa ilaahay aanu cimaamad ilaahay aanu weydiisano wanaag badan oo shukrino haweenu dhaltay dalka Mareykanka ayaa isheeda laga soo bixiyay 14 gooryaan 20 maalmood gudaheed ka soo siib gooryaan dhaadheer ka soo siib geedkii aad ilmayna ka oynaayeen caloosh markay ka soo waxaynaayeen ayaa meeshii ka baxayeen ka qaylaan hadii indha laga soo siibo ka war naxdina u dhimanaybu naxdin aad buu dhimanaybu marka haweenu dhaltay dalka Mareykanka ayaa isheeda laga soo bixiyay 14 gooryaan oo 20 maalmood gudahoodu haweeneedan ayaana kulumaysato ayaa u baxday kulumaysigeeda maalin kamid ah sanadka 2006 balse indhaha xanuun ayay isku aragtay oo indhaha ayaa gudutay wax yar kadib waxa ka soo baxay gooryaan dhirkiisu uu dhan yahay 1.3 mitir ayuu dhan yahay ya madax xanuun joogta ayay isku aragtay waxaana dib u booqatay dhakhtarkaas oo 20 maalmood gudahooda isheeda ka soo saaray 14 gooryaana dhakhtarka ayaa sheegay in gooryaankan uu yahay mid isha ka gala xayawaanka wuxuuna sii raaciyay inay suurtagal tahay in dadkan uu ku dhaco dhakhtarka ayaa sidoo kale u sheegay in suurtagal ay tahay in dhalaan ay ku keeni karto qofka uu ku kaco cudurkaas waxa laga haya markaas waxaad leedahay anugu saan waaye waxaana nagu hayo ar ilaahay aanu noqono shukrintan badino
lo baa weli xabsi ku jirta oo lo baa weli xabsi lagu hayaa oo waxa lagu hayaa looda tanu xabsi sanad iyo bar ayaa lagu hayaa sanad iyo bar baa xabsi lagu hayaayo hadda maxaa loo xiray booliisku dalka Turkiga ayaa xabsiga u taxaabay lo taas oo u xiran muddo dhan sanad iyo bar kadib markii ay sababtay shil gaari oo ka dhacay mid kamid ah wadooyinka dalkaas looda ayaa la xiray si loo helo shakhsiga iska leh balse la haddu lama hayo qofkii lahaa loodaas taas oo keentay inay isagu iyadoo la sii xiraba ilaa hadda booliisku ayaa sheegay in la raadinayo shakhsigii lahaa saacka balse aan la helin sidoo kale wali waxa baaritaan ku socda qaabkii u dhacay shilka sababay looda sanadii 2016 sanad iyo bara xabsi lagu haya ninkii lahaa saackaasna ma soo raadsanayo hadda taas waxay ka dhigtay looda in la xiro adduunka ororad u malay dad gooska jibine wax ma lagu dhahay ma dad wax yeelax ma lagu dhahay meeshan waxaad ku haysaa xaga ma la tagi kartid wariya loo sanadii bar xiran wariya adiga ku daaha waayahayo qaybaha la yaabka balinta ku dhaafno caawa heeska turjumaanka ayaanu gaarnay marka kan turjumaadu caawa heeskii filimkii ku jiray 1998 kuchkuch hotaahe oo la micnaa wax ayaa igu dhac yani wax baan dareemayaa kuchkuch hotaahe waxa waday Shahrukhan Ranimi Quricha Kajal Salman Khan baa qayb dambe ka soo baxay filimka heeska kan waa hees jacayla Kamal Dar le team code walidin cimaamada marka maxaa ila adduunka Kamal Dar le sheegaysin aniga saan waay Messi Ronaldo la leedin oriya isjilciya gabdhaha u cimaamada idinka midin guurna soddon jirka gabdhaha Sacuudiga waa la guurnooyay idinkana double ma ahaanaysin ileen gabar ma rabtin inaan wax fiican sheegin nin Ronaldo sheegay oo Messi sheegay yaa rabo isjilciya marka anu winaad isjilcisaa ma raba oo jaceelka barataan ha Messi iyo Ronaldo inba waka baba waka heeska kanu heesaha lagu yaqaan hindigu ka mid yahay oo kuchkuch hotaahe ragaystayaal badan baa naga dalbaday oo noo soo cimaamada yiraaska kaayo yaa wallahi cimaamada yaa jacayl weyn waa yaba Farid तुम पास आए ii soo dhawow oo cad यूं मुस्कुराए mar walibana sidaan igu dhoola caday gafuurtaag mal rawiilen तुम पास ii soo dhawow mar waliba sidaan igu dhoola caday तुम Allah maxaad riyooyin igu abuurtay सपने या। दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुम ii soo dhawow mar walba sidaan igu dhoola caday Allah maxaad riyooyin igu abuurtay अब तो मेरा maalmahan qalbigayga waxa uu ahaa mid soo jooda hurdana waladi waayay maxaan sameeyaa qalbigan wax ka dareemaya ayuu leeyahay maxaan sameeyaa qalbigan wax ka dareemaya kuchkuch hotaahe waxaan dareemayaa waa macna ii soo dhawow mar waliba sidaan igu dhoola caday Allah maxaad riyooyin igu abuurtay yani waan kugu riyooda habeenkiiba maalmahan qalbigaygu wuxuu ahaa mid soo jeeda hurdana waan ladi waayay maxaan sameeyaa kiya karuhaye maxaan sameeyaa kuchkuch hotaahe qalbigan wax ka dareemaya maxaan sameeyaa qalbigan wax ka dareemaya bay leedahay rani waka فيلم كان فيلم جعل بوها يا ना जाने कैसे الله كني ودر النوع كان ودر النوع ابو شروقان كني اون غايا maahan ee waa oo noocee ah buu leeyahay taaniya u jawaabis waxay leedahay maxay tahay suntaan jaceelka ee ila wareegtay anigoo dhanba maxay tahay suntaan dhan jaceelka anigu ila wareegtay cidna ma oga sababta qof uusan u deganin markuu jaceyl ku hayo maxaan sameeyaa qalbigan wax ka dareemaya maxaan sameeyaa anigu qalbigan wax ka dareemaya bay leedahay sheekadu Kajal baa soo xiri doonto yani waxay tiri ma taqaana wuxuu yiri naajane keese asene alla kani waa dareen noocee ah buujaanihin kaya biyaase kay kan waa on go'aya ma ahane ee waa on noocee bay tiri Kajal soo galaysa marka ya waa saddex gees la waa jacayl kanu ya mid baa gabar u jecel asal tan kala sii jecel ya
marka oonkan muxuu yiri oon go'ay ma aanu yiri ka war iidina waxay tiri maxay tahay suntan jaceelka ila wareegtaa anigu dhan cidna ma oga sababta qof uusan u degnayn markuu jaceelku dhacal yiri salaadayda iyo ducadayduba waa la ajiibay wal aqbalay ilaah baa og waqtiga iyo goorta uu jaceelkan ii haleelay ama igu dhacay yaa maxay nolosheeda u noqotay mid aan nasinanahayn gaar ayaan u fariistaa waxaan isku madadaaliyaa xasuusta waayo maxaan sameeyaa hee qalbigan wax ka dareemaya yani jacayl baa haya maxaan sameeyaa hee qalbigan ka dareemaya yaa tumbasi aye ii soo dhawowo mar walba sidaan igu dhoola cadday alla maxaad riyooyin igu abuurtay ii soo dhawow mar walbana sidaan igu dhoola cadday alla maxaad riyooyin igu abuurtay maalmahan qalbigaygu wuxuu ahaa mid soo jeeda hurdana waaba iga imaan weyday maxaan sameeyaa hee wax baan dareemayaa jacayl baan dareemayaa yaa jacayl baan dareemayaa ayay leedahay way wada leeyihiin oo kuwa kanoo marka niman yahow ma idin guurnaa dhammaantiin marka gabar waxay kaa rabtaa inaad hadaladaasba macaanad jaceylka kula hadasho ee gabar kaagama baahna markii habeenka ciyaar soo fiirsa inaad gabarta ugu sheekayso waraag messi gabadhaas dhali ka waran jelsi waa ka dhaliyay iyo warar ronaldo biis iyo waad meela saaray ka waranayo makaa yeelaysa gabar waxay rabtaa abbaayo gacalka ay rabtaa adigu gamaldaarad ba haysaa waa sababta habeenka jaceylkaan idinku sameeyo saad mataqaana cimaamad isugu yeeshaan cimaamad ma leedihiine waayahayo gabagabadii barnaamijkeenu aflaamtu hinduga isbuucan arrimaha ugu weynaa waxaa ka mid ahaa war baa sheegayay in rambo uu dhintay laakiin rambo isaga warkaas way beeniyey ninka filimada mareykanka jila Stallone waa beeniyey markuu Instagram-kiisa soo dhigay sawirka ama videoga isaga iyo caruurtiisuba Amir Khan filimkiisa ayaa Shiinuhu ka noqday film aad loo jecel yahay waxaan Amir Khan uu yahay actorka looga jecel yahay wadanka Shiinaha maadaama filimkiisa Dangal 3 Idiot BK Secret Superstar laga daawaday Shiinaha lacagaha ugu badan lagu daawaday filimkiisa actorada kale filimkooda loogama daawan filimka uu soo wado Mahesh Babu iyo filimka uu soo wado Allu Arjun ee Nabara Surya iyo filimka Mahesh Babu ee yiraahdo Bharat Anananu waa la filimada Tamilka Telugu actorada ugu caansan labadooda filim way isku dhacayaan tartan bay gali doonaan oo 27 Abriil labadooda filim baa soo wada baxayo waxay ku tartamayaan filimada lacagta soo xaroota shineemooyinka waliba filimka Akshay Kumar markii uu soo saaray Batman filimkii xafaayadaha waxay siinayay hadda wuxuu Akshay Kumar soo wadaa filim kale oo la yiraahdo waa filim hadda uu la jirayo ilma yare Afghanistan buu la jilayayo filimka kanu waana filim hadda taariikh hore ka sheekeynayo